madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shira Sayli iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayay oo maalinta ololaha xisbiga kulmiye kaga qayb galay deegaano ka tirsan gobolka Awdal iyo Salal ayaa goorfidkii haddaba gaaray maanta magaalada Saylac halkaasi oo kala kulmeen soo dhaweyn aad u ballaaran taageerayaasha xisbiga talada Soomaaliland ee magaalada Saylac haddaba munaasabad loo qabtay soo dhaweynta wafdigan iyo taageerada xisbiga talada Soomaaliland ee kulmiye oo ay ahayd maalintii ololaha waxa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Saylac Saad Daahir iyo waliba barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur waxaana halkaasi ka sheegeen ku soo dhawow degmadii Saylac ku soo dhawow gobolkii Salal waa ku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa dadweynaha reer Saylac ee galabta oo dhan iyaguna bacad ka taagnaa waxaan leenahay waad mahadsan tihiin sidaa u soo dhaweyseen madaxweynahana waa idinka mahadcelinaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maanta waxay maalintii xisbiga kulmiye ahayd waxaanu ku jira hawsha xisbiga kulmiye madaxweyne waxaanu ka soo ololnay ilaa xariirad iyaguna wuxuu soo maray ilaa geersuu soo maray madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hogaaminaya barasaabku madaxweyne ku soo dhawow degmadii Saylac waxaan idinka mahadnaqaynaa anigoo soo bixiyay inay iska nastaan dadku laakiin madaxweyne waa ay diideen madaxweynaha iyagoo imanaya nasan mayna bay yiraahdeen waa ilbaxnimada leedku yaqaan soo maaha aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynuhu taraaq dheer buu soo galay waxaanu nasiib u yeelanay inuu madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ee wasiirka caafimaadka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo kaadiriinta xisbiga kulmiye ay nagala qayb galaan xaaladaha doorasho hadday mid abni tahay iyo hadday mid guubaaba tahay Saylac oo lagu yaqaanay xisbiga kulmiye ee horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida u horseeday degmadan Saylac aad iyo aad baa u mahadsantihiin madaxweynuhu hawshaas uu socdaa waa inala joogi doonaa caawa safar dheer buu soo galay meelo badan baynu ka nasiib badannahay maanta oo kale madaxweynuhu Hargeysa joogay innagana madaxweyne ku-xigeenkii baa inala jooga innagoo koonaha kale dalka ku naala geesiisa waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Ali Cabdullaahi Bade waxaanu sheegay Rahmaan Rahiim marka hore aad iyo aad baad mahadsantihiin bulshada reer Saylac xilliga aad taagan tihiin oo go'aan aad qaadateen aad soo dhaweysaan wafdiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku waa goobtaan joognaa waa Saylac waa hooyadii xadaaradda iyo horumarka waan filaynay intaa iyo inka badan baa inaad samaynaysaan aad iyo aad baad mahadsantihiin madaxweyne ku-xigeenku wafdiga hogaaminaya isaguba waxa u soo kici timeen in gobollada galbeedka la maro oo dadka laga dhaadhiciyo in si nabada lagu codeeyo in si nabada loo sameeyo ololaha doorashada iyo in dadku ay codkooda ay ku taageeraan xukuumaddooda taagan hadda iyo xisbigooda kulmiye shaki kuma jiro in degmada Saylac gabigeedu ay u codeynayso xisbiga kulmiye waxaanu u soconnaa waa arrinta inaad ugu dhiirigelinno iyo dadku inay ilaaliyaan shuruucda iyo anshaxa iyo asluubta doorashada innagu ma nihin xisbul xaakim xisbi kaliya waxaan nahay xukuumaddii waxayna saaran nabadgelyada in la ilaaliyo waxayna saaran shuruucda doorashada in la dabaqo waxayna saaran inaynu doorashadan oo adduunka aynu ugu sheegano inaynu qaangaadhnay maalmo ka hor waxaynu u dabaaldegnay soddon guuradii ka soo wareegtay maalintii aynu la soo noqonnay qarannimadeenna maantana waxaynu u taagannahay waa doorasho ugu dambayn madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shira Sayli oo halkaasi dadweynaha kala hadlay ayaa waxa uu ka warramay ahmiyadda ay Soomaaliland ugu fadhido labadan doorasho ee isku sidkan shacabka reer Saylac ee sida sharafta iyo karaamada mudan ee madax jacayl ku dheehan tahay noogu soo dhaweeyay ilaa maanta iyagoo dabaaldegoodii dhammaystay haddana saacadan joogna cishaayigiya annagu waxaan ku soo talinay oo lidhi maanta la daalay ha iska nastaan reer Saylac waxba saacadda baa nooga dhacaysaa mar haddaad tidhaahdeen iyagoo madaxweynahayga iyo waftigaasi noo imana xukuumadda imana seexan mayno aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ujeeddadaan u soconnay waa intaa uu inoo sheegay wasiirku iyo maaragtay guddoomiyaha gobolku waxaan u soconnay oon u dhex marinay intaa cisho u soconnaa een buur iyo bannaanba u soo marnay in doorashada ay nagu soo socoto haddii alla ka dhigo ay nooga hadhan tahay maalmaha kooban ee 6 cisho ah in aynu u diyaargaroonno inooguna qabsoonto doorasho sharaf badan oo nabad ku dhacda oo xor iyo xalaala oo qarankeenna sumcad iyo magac u soo jiita ayaynu u soconnaa inaan inoo qabsoonto aynu iskana wada saarno mas-uuliyadda xagga nabadgelyada haddaynu nahay dawlad iyo haddaynu shicib nahayba madaxiyo mijo waxaa lanaga rabaa
inaannu iska xil saarno inayna doorashadaasi naga noqon mid dhibaata ka timaaddo mid isqabsi ka yimaadaan mid isku dhac ka yimaado labada afartaa cisho iminka inoo hadhaya tartanka iyo maaragtay socdana si eedaba loo tartamo oo maaragtay nadiifa taa markaan ka nimaadno annagu waxaan deenahay xukuumaddii maanta xisbiga kulmiye isbeddelkaan ku samaynay degmada saylacna laydinka warramaa wad ogtihiin dad ku suntanna waa tihiin degmooyinka xisbiga kulmiye u tirsanna waa tihiin tii unbaa maanta idinka fadhinaa caawana idinka fadhinaa inaad musharaxiinta inii soo xulnay ama kuwii hore u shaqaynay ahaa ama kuwa cusub oo ku soo biiraba ha noqdaane ee golaha deegaanka degmada saylac iyo kuwa qaranka u sharaxan ee gobolkii ka soo jeeda guud ahaan awdal iyo salel inaad kuwaasi aad inii soo xulnay aad taageertaan ood codka siisaan oo berritoola noqdaan kuwa garabkiina jooga sababtoo ah codkiinnii hore ee 2012kii aad golaha deegaan ku doorateen kumaydaan khasaarin kii 2010kii aad ku doorateen xukuumaddii kulmiye kumaydaan khasaarin kii 2017kii ee aad ku doorateen xukuumaddii labaad ee kulmiye kumaydaan khasaarin markaan xagga degmada u soo noqdo degmadu maanta saylac waxay noqotay degmadu inka ugu sarreeya xagga qorshaha degmada iyadoo degma haddana biya ah degmooyinkii aadii ku dhaaftay muddo yaroo kooban oo lagaga faano qarankao dhan ku faanaan maxaa keenay waa raggii kulmiye ka soo baxay ee iniin noqday inayna hoggaamiyaan